dowladda Masar ayaa madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay ku casuuntay inuu booqasho ku yimaado magaalada Qaahire ee xarunta dalka Masar. Kaliyaha amuraha dibadda arrimaha Afrika u qaabilsan waddanka Masar haweeneyda lagu magacaabo Muna Cumar ayaa saxaafadda kula hadashay magaalada Qaahire ee waddanka Masar ayaa sheegtay in dowladda Masar ay ku casuumayso madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu booqasho ku yimaado magaalada Qaahire ee dalka Masar iyadoo rajo ka muujisay in madaxweynaha casuumadaas uu aqbali doono. Muna waxa ay sheegtay dowladda Masar inay ku hanweyntahay in madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay kala xaajoodaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo xasiloonida dalka iyadoo ku tilmaantay Sheekh Shariif inuu yahay rajada kaliya ee lagu soo celin karo ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya. Muna Cumar waxay carabka ku adkaysay in dowladda Masar ay u aragto Soomaaliya inay tahay dowlad muhiim ah iyadoo meesha ka saartay inay Masar ka seexatay arrimaha Soomaaliya waxayna sheegtay xukuumadda Masar inay sii wadayso xiriirka ay la sameynayso dhinacyada Soomaalida waxayna ugu baaqday dhinacyada dhaliisa Sheekh Shariif Sheekh Axmed inay arrintooda ay ka muujiyaan si sharci ah ay ka fogaadaan rabshado qalqalgaliya xasiloonida dalka Soomaaliya iyadoo ku tilmaantay inta badan waxyaabaha ka taagan Soomaaliya in xal rasmi ah laga gaaro kuna salaysan wada hadal. Dowladda Masar ayaa laga yaabaa sida lagu helayo warar xoogaal ah inay iyadu u yeerto gudoomiyaha isbahaysiga dib u xoreynta dalka Soomaaliya garabka Asmaro uu hogaaminayo Sheekh Xasan Daahir Aweys. arrinta ayaa laga yaabaa haddii ay suuragal ay noqoto inuu soo degdego xalka dowladda midnimada qaran ee Soomaaliya ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa asiga hore u yimid magaalada Qaahire ee waddanka Masar xilli ay maxkamadaha Islaamiga ay ka talinayeen koonfurta dalka Soomaaliya. Masar ayaa saaxiib dhow waxay la tahay madaxweynaha midnimada qaran ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaana laga yaabaa Masar inay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ka saacado arrimaha dib u heshiisiinta taa haddii ay dhacdo ayaa laga yaabaa inay cagaheeda ku istaagto dowladda midnimada qaran ee dhawaan lagu soo dhisay waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti. mahad carab oo cali telefishinka Universal Alqaahira.